Ma garanaysaa macnaha asalka ah ee ay leedahay farta dhexe oo sidan loo taagay? Waxaan aragnaa dad badan oo markii ay caroodaan sidan farta dhexe u taaga. Farta dhexe in sidan loo taago macnaheeda asalka ah ma tusinayo xumaato iyo edeb darro iyo saqajaannimo iyo waxyaabaha hadda maskaxdaada ku soo dhacaya markii aad aragto qof sidan farta u taagaya inuu ula jeedo. Waxayna leedahay ujeedo kale taasoo ku saabsan qiso xilli hore dhacday. Ugu horreyn waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto siina share garayso si uu u gaaro dhammaan dadka muslimiinta ay uga faa'iidaystaan. Xilli hore waxa uu dagaal dhex maray ciidankii Ingiriiska iyo ciidankii Faransiiska. Dagaalkaas waxaa lagu magacaabi jiray Azincourt. Ciidanka Faransiisku markii ay guuleysteen oo ay ka adkaadeen ciidanka Ingiriiska, qoysaska Ingiriiska ah ayay u tagi jireen, qof walbana fartaas dhexe ayay ka jari jireen. Maxaa yeelay fartan waxaa lagu ridaa gabuunka. Marka si ay u awoodi waayaan gabuunka rididiisa darteed ayay uga jareen fartan. Laakiin markii dambe oo ciidanka Faransiiska la jebiyey oo uu Ingiriisku guuleystay, Ingiriisku fartaas dhexe ayay taagi jireen ayagoo ula jeeda hadda waan awoodnaa inaan gabuunka ridno, inaan idinla dagaalanno, waanan idinka guuleysanay. Xilligaas wixii ka dambeeyana waxaa loo adeegsan jiray qofka laga adkaado. Qof walba oo laga adkaado sidan ayaa farta loogu taagi jiray. Haddii aad ka faa'iiday dadka kalena u sii share garay, mahadsanid.